Biyo-Xidheenka horukaca ama biyo-xidheenka kunka weyn. Biyo-xidheenka horukaca ama biyo-xidheenka kunka weyn waa biyo-xidheen Ethopia ay ka dhisayso Niilka buluuga ee gobolka MEESHA Coast Region kuna dhow xuduudda Ethopia ee Suudaan. Wuxuu noqday biyo-xidheenkii dabiyood ee qaaradda Afrika, sidoo kale biyo-xidheenkii tobnaad heer caalami ah liiska biyo-xidheenada ugu waaweyn ee soo saara korontada. Waxaa lagu qiyaasaa lacagta ku baxday 4.7 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Waa mid ka mid ah 3 biyood xidheen loogu talagalay korontada dhalinta tamarta biyood ee Ethopia. Waxaase jira walwal ka dhan ah khubaro masaari ah taasoo ku saabsan saameynta qulqulka biyaha Niil qaybtii Masar ay xaqa u lahayd ee lagu wada heshiiyey. هذا هو الموقع المرتقب لمحطات الطاقة الكهرومائية. إنه موقع مثالي لتطوير مشروع الطاقة الكهرومائية، وهذا هو سبب وجودنا هنا، وهو نتيجة للدراسة التي أرشدتنا، واستنادا لتلك الدراسات أجرينا أعمالا استقصائية. في الواقع في أعقاب التحقق من الجدوى وإجراء دراسات الجدوى أنشأنا التصميم الأولي، وبناء على التصميم الأولي نفذنا أعمال بحث إضافية، واستخدمت نتائج أعمال التحقيق كمدخلات للمستوى التالي من التصميم مثل المستوى الأول. وأخيرا وصلنا إلى مستوى التصميم الذي نعتمد نحن عليه الآن لبناء محطة الطاقة المائية هذه. dowladaha kulaala webiga Niil hore waxay u ahaayeen kuwa gumaysi ku jira. Markii ay xornimada qaateen waxaa la kala saxiixday heshiis ah in biyaha 3 loo qaybsado. heshiiskaas oo ka dhacay Addis Ababa sanadkii 1902 ayaa wuxuu dhex maray Ingiriiska oo metelaya Masar iyo Suudaan iyo Ethopia oo dhinaca kaasoo qoraya inaan wax mashruuca laga dhisi karin meelaha uu maro webiga Niil sida harada Tana, webiga Sobaad iyo Niilka buluuga. heshiis kale ayaa soo baxay sanadkii 1929 oo qoraya ogolaanshana siinaya wadamada webiga Niil uu maro inay xaq u leeyihiin inay ka hortagaan mashruuc kasta oo laga dul dhisayo webiga Niil ama meelaha uu maro. heshiiskaas ayaa dhex maray Masar oo dhinaca iyo Ingiriiska oo metelaya Kenya, Tanzania, Suudaan iyo Uganda. si Masar uga faa'iideysato harada Victoria waxaa Suudaan loo qoondeeyay 7.7% biyahaas, halka Masarna 92.3% helayso. الاتفاقية المادة الثالثة التي يعد فيها الإمبراطور منيلك الثاني بأن لا يبني أو يسمح بأي أعمال على نهر النيل أو نهر صوباط أو بحيرة تانا. هل أثيوبيا تعترف بهذه الاتفاقيات؟ إثيوبيا لا تعترف بهذه الاتفاقيات لأن غالبية هذه الاتفاقيات كانت اتفاقيات ثنائية. في عام 1929 وقعت بريطانيا اتفاقية مع الحكومة المصرية بالإنابة عن تنزانيا وكينيا وأوغندا، أعطت الحق لمصر بالاعتراض على أي مشاريع تقام على نهر النيل دون إذنه. حق الفيتو. نعم، حق الفيتو. sanadihii 1956 ilaa 1964 waxaa la calaamadeeyay meesha uu ku yaalo biyo-xidheenka weyn ee Ethopia, waxaana hawshaas qabatay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. iyadoon Masar loo geysin sidii ku qornayd heshiiskii 1929 ee Oktoobar 2009 iyo Agoosto 2010 dowladda Ethopia ayaa kormeer ku sameysay meesha laga dhisayo biyo-xidheenka. sanadkii 2010 waxaa la dhameystiray qaabaynta biyo-xidheenka 31 Maarso 2011, hal maalin kadib markii daaha laga qaaday mashruuca. waxaa loo ogolaaday heshiis qiimihiisu yahay 4.8 bilyan oo doolarka Mareykanka ah shirkadda Talyaaniga ee lagu magacaabo Silini Constructor, iyadoon wax laga loo hormarin. 2 Abriil sanadkii 2011 ra'iisul wasaarihii hore ee Ethopia Meles Zenawi ayaa dhagax dhigay biyo-xidheenka. 15 Abriil 2011 golaha wasiirada Ethopia ayaa magaca biyo-xidheenka u bedelay biyo-xidheenkii hore ka caweynaa kaasoo hore loo oran jiray mashruuca Egas. heshiisyadii mashruuca markii ay dhamaadeen waxaa loo bixiyay Millennium Dam. بماء النيل إن نقصت مياهه قطرة واحدة
فدماؤنا هي البديل. May 2011 Ethopia ayaa iclaamisay inay Masar la wadaagi doonto qorshaha biyo-xidheenka si loo ogaado saameynta biyo-xidheenku ku yeelanayo Masar. Maarso 2012 Ethopia waxa ay sheegtay kordhin lagu sameynayo biyo-xidheenka si looga sameeyo xarunta dabdhaliye koronto iyadoo laga dhigayo 6,000 oo megawatt horena u ahayd 5,250 megawatt. dhaqaalaha ay bixisay dawladda Ethopia iyo kaalmooyin dibadda ka yimid ayaa lagu dhisayaa biyo-xidheenka waxaana uu dhamaaday dhismihiisu sanadkii 2017 si rasmiyana wuxuu u howlgeli doonaa sanadka 2022 sanadkii 2018 waxaa geeriyooday injineerkii gacanta ku hayay biyo-xidheenka isagoo hore 12 biyo-xidheen uga soo dhisay gudaha Ethopia. هناك معارضين في السودان ومصر على المشروع يقولون بأن نسب المياه المتدفقة إلى مصر والسودان ستقل وهذا سيؤثر أيضا على السدود التي تولد الطاقة في كلا البلدين. نحن نبني محطة الطاقة الكهرومائية هذه بطريقة مسؤولة ومهنية، وشعوبنا في دول المصب في اتجاه مجرى النهر هم إخوتنا، لذلك نحن نعلم أن هذا المشروع سوف يفيدهم. ولهذا السبب وبهدف بناء الثقة بيننا أقدمت الحكومة الإثيوبية على مبادرة تشكيل لجنة خبراء دولية. biyo-xidheenka ayaa ku fadhiya masaafo dhan 1700 mitir oo 3 jibaaran wuxuuna ka kooban yahay laba qaybood oo kala duwan. ballaca qaybta koowaad ayaa lagu sheegay 1780 mitir halka dhererkiisu yahay 155 mitir. qaybta labaad ayaa iyadana ballaceeda lagu sheegay 4800 oo mitir halka dhererkeedu yahay 55 mitir. biyo-xidheenkan ayaa ku fadhiya dhul aad u weyn, buuxintiisa ayaa u dhiganta 2 sano biyihii ay heli lahaayeen dalalka Suudaan iyo Masar waxaana lagu sheegay 75 milyaar oo biyo ah. تحديد حصص المياه 55.5 مليار متر تلقي صندوق حدد يقع السد في إقليم بني شنغول شمال إثيوبيا ويفصله عن شرق السودان نحو 40 كيلومتراً. si cad looma wada garanayo saameynta biyo-xidheenku ku yeelanayo wadamada webiga Niil uu ku shubmo. Masar ayaa ka walaacsan hoos u dhaca kooban ee ku imanaya biyaheeda inta lagu guda jiro buuxinta kaydka biyo-xidheenka iyo umibaxa joogtada ah ee ku saabsan kaydkaas taasoo keenaysa mar walba buuxin joogtada ah.